السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت وناقا إيا كرامة بدن آدبان إني سلامينا نولو عبان إذين رجينينا يكسور دوادا كنال كينا عافيماتك يدريالك عافيماتك نولوشا مقال كان إن شاء الله وحو فايدة ويهي وإنو كغا هاللينا ورقا اللوميي معدن تودا ترانكا سيدا إنو أكسون نهي dadka inta badan inala soo xidhiidha waxa u badan rag badan oo ka calooliyoomaya ama iska ciilkaambiyaya inay lumiyeen biyahooda ama macdantoodii taranka. Arrintaas oo ku dhacday inay markaas ay ku falaasheen ama ay gacantooda iyo meelo kale oo khaldanba ay si qaldan ay uga yimaadeen ayaa xilliyada ay doonayaan inay guursadaan ama ay doonayaan inay mustaqbal iyo nolol ay uga galxaadhaan waxay inala soo wadaagaan qaabka ay u soo ceshan lahaayeen ama sida ay u soo kobcin lahaayeen biyahoodii taranka ama sida ay u heli lahaayeen markaas macdan badan oo ay ku awoodaystaan oo mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo noloshooda dambe anfacda oo ubad iyo awlaad ay ilaahay kaga baryaan. Arrintaas ayaa inta badan ayna soo weydiiyaan bulshadeena qaar badan oo kamida gaar ahaan ragga. Sidoo kale qoraalada ayaynu ka dheehanaa ama aynu ka daalacanaa inay lumiyeen macdanta aadka u qaaliga. Marka koowaad waxaynu u sheegaynaa arrinta ragga ay arrintani qusayso ama qof kasta oo si qaldan u luminaya macdantiisa inuu ku jiro xaalad aad u halis badan. Marka koowaad waxa aad luminaysaa waa awooddaadii ama waxa loo yaqaano immunity-ga iyo difaaca jidhkaaga ayaad luminaysaa. Marka labaad waxa aad luminaysaa haddii aad nin tahay raganimadaada, haddaad haweenay tahayna sidoo kale waxa aad luminaysaa dumarnimadaadii ayaad luminaysaa. Qodobka saddexaad waxa aad luminaysaa mustaqbalkaagii dambe iyo aayahaagii dambe iyo awlaadaadii dambe iyo ubadkii ilaahay uu sabab kaaga dhigi lahaa macdantan ayaad luminaysaa oo si qaldan oo marka ay ku jirto ilhaamo oo fool xun ayaad u luminaysaa. Intaa marka aad lumiso waxa kale oo runtii aad u dhaliilaysaa caqligaagu qaabka uu liito ayaa markaas waxa uu yahay mid dhaliil mudan oo la odhan karo qofka caqliga ilaahay kaamil uga dhigay inuu arrimaha noocan oo kala uu sameeyaa oo wax caqliga ibn aadamku diidayo maskaxda quruxda badan ay diidayso dadka inta badan ilaahay kaamilka uu ka dhigay garashadooda ay diidayaan haddii aad cilmi leedahayna cilmigaagu uu diidayo. Haddaba arrintani waxaynu aad u ogsoonahay macdanta oo la lumiyaa inay leedahay qoomamiyo iyo inay leedahay ciilkaambi iyo inay leedahay calooliyo dambe oo aad u ballaaran. waxaa dabcan markiiba inagu soo dhalata ama ay noo soo sheegaan inay hadhowto aanay waxay la shirtagaan aanay haysan raggaasi waxay la shirtagaan inaanay haysan oo waxoodii ay horu soo lumiyeen kadibna si boobsiisahoo degdega ayay doonaan in wax lagu sheego oo jirkoodu uu qaato wax loo yaqaano renourishment-iga inoo saaran si degdega inay dub iskugu nafaqeeyaan ama inay jirkoodii ay soo nafaqeeyaan oo degdeg ay u soo celiyaan si markaas ay nolosha dambe iyo guur hadday doonayaan iyo si ay fashil uga badbaadaan bay arrintaas ay runtii ay noo soo weydiiyaan. Muuqaalkan baa maanta waxa uu ka hadlayaa qaabka aad u samaynayso renourishment-iga ama dubu nafaqaynta jidhka ee dhinaca ragga. waxaa shaashadda inoo saaran sidaad ka arkaysaan ama aad ka dareemaysaan waa lowska lagu magacaabo almonka. sidoo kale waxay noo saaran shaashadda basasha nooc ka tirsan ama ka mida oo iyadana la yidhaahdo white onion ayaa iyadana inoo saaran muuqaalkan. sidoo kale waxay inoo saaran oo aynu kaga hadlaynaa in iyaduna ay ka qayb qaadato arrintan ama dib u nafaqaynta jidhka iyo soo celinta ragga macdanta ka luntay dib lagu soo celinayo caanaha freshka ama loo yaqaano fresh milk. kuwaas ayaynu maanta isku samaynaynaa inaynu isku hagaajino kadibna nafaqadaas waxay u wanaagsan yihiin macdantii luntay. halkaynu ka hadlaynaa waa inaynu dib u soo celino macdantii luntay
maadaama oo dhibaatadani ay tahay dhibaato inugu soo noqnoqonaysa oo markasta ay u soo baahan yihiin bulshadeenu in loo soo bandhigo oo arrintaasi ay tahay arrinta ugu faraha badan ee tilaanyada abuurtay, arrinta ugu faraha badan ee ciilkaambiga ku abuurtay ragga, arrinta ugu faraha badan ee walwalka mustaqbalka abuuraysa ay noqonayso. qaabkan baynu insha allah samayn doonaa. lowskaasi waxa uu aada ugu fiican yahay inuu dib u soo celiyo unugyadii cadcaddaa ee faa'iidada jidheed ee difaaca lahaa, isla markaana inoo salgoynayay ama qofku sabab alle ka soko uu ku helayay ubadka iyo awlaadda ee aynuna ku naqaano biyaha tarankee ninka, ama markay dabadda ay u soo baxaan macdanta ragga ay yihiin, ama aynu sidaa niraahno macdanta ragga. kuwaasi waxay lowskaas ayaad soo qaadanaysaa. waxaad isku dayaysaa inaad lowskaa galka aad ka saarto, kadibna aad ridqido isagoo aan dab la gelin ama aan dab lagu isticmaalin. waxaad ka dhiganaysaa cabitaan iyo juice baad ka samaysanaysaa. waa isaga oo aan totally waxtaba haba yaraadee ama diirimo adahoo gulayla ama dubis ha laga dhigo oo ha la dubo ama caadiba dabka ha loo saaro, waxaas oo dhan waa laga fogeynayaa. isagoo caynkiisa ayaa la shiidanayaa oo la ridqaya. kaliya wax shuruudaha ku xidhan waxaa kow ka ah inuu nadiif yahay, inaanu dhibaato lahayn, inaanu waxyaabo ilmo qabatiiho qofka ha dhowto waxyeelaya aanay ku jirin. shuruudahaas ayaa ku xidhan. isagoo nadiifa ayaad radsanaysaa sidii caadiga ahaa ee aynu lowsaskii horeba u samayn jirnay, sida binaytkii oo kale, ama aynu u samayn jirnay networkii kuwii iyaguna ka qaybka ahaa ayaad u samaynaysaa. cabitaan ayaad ka dhiganaysaa. cabitaanka waxaa aada u wanaagsan inay ku weheliyaan ama ay la socdaan caanaha freshka. caanaha freshka oo aad ku dartaa oo lowska aad ku shiidaa oo cabitaan aad ka wada dhigataa waxay soo kobciyaan ama ay degdeg ay u soo celiyaan oo renourishment ay ku sameeyaan ama reinforcement ay u abuuraan oo ay kaabaan inay dib u soo noqoto macdantii ragga ee luntay ama macdankii ninka ka luntay ee sida degdega uga luntay, iyo waxyaabihii uu samayn jiray iyo raggii gacanta la noolaa, iyo aafadii aadka u foosho xumaarankii ku jiri jiray, iyo xataa xaaslayaasha. ninka sidoo kale isaguna xaasas badan lahaa ee doonaya inuu dub isku nafaqeeyo ama dub jirkiisa u soo celiyo, lowska nooca aynu tilmaamnay ayaad soo qaadanaysaa. waad shiidaysaa, cabitaan baad ka dhiganaysaa. kadib caanaha ayaad ku darsanaysaa, jirkaaga ayaad ku quudinaysaa muddo runtii xidhiidha oo aan maalmo ahayn oo aan bila ahayn, ilaa inta aad ka dareemaysa raganimadaadu inay aada u soo buuxsantay. laakiin xilliga arrintan aad samaynaysaa min fadlig waa inaad ogaataa ma aha xilliga aad arrimaha haddaad ku jirto ama aad wixii foosha xuma aad walaaqanayso ama xataa xaasle aad tahay, waa inaad hakad aad gashaa xaaladdan xilliga aad doonayso jirka inaad nafaqayso. waa inaad aafadii foosha xumayd aad joojisaa haddaad waxaa ku jirto. haddaad xaasla tahayna waa inaad muddo tembraria aad hakad gashaa oo markaa xaaskaagana aad u sheegtaa inta jirka uu soo nafaqoobayo xaaladda aad ku jirta. waxaa iyaduna dabcan sidoo kale inoo saaran shaashadda basasha loo yaqaano basal cadka. basashu waa dhowr nooc. basashu mid waxay leedahay diirimaad iyo kulayl oo marka la jaro waxaa ku jirta substances ama maado aada u kulul oo xataa qofku marka uu goynayo laga yaabo inay indhaha ay ka ilmaysiiso. basashaa ka hadli mayno, waata cuntada lagu darsado ee cuntada nafaqaysa ama cuntada carfisa ee wanaajisa, jirkay u fiicantay, waa wanaagsantahay basashaas. laakiin taynu ka hadlaynaa waa basal cadka, waa basasha iyadu aan kulaylka lahayn. basasha aan kulaylka lahayn ee iyada loo yaqaano basal cadka ayaad soo qaadanaysaa. basashaas caadi cabitaan caadi aad ka samaysanaysaa ama sideeda ayaad u isticmaalaysaa oo aad u cunaysaa haddii ilaahay ka dhigo. basashaas oo sideeda u qaadata ama aad u cunto ama aad u quudataa waxa ay keentaa inaad isbedel aad dareento dhinaca raganimada. iyaduna sidoo kale waxa ay kordhisaa macdanta ragga ee ninka ka luntay ee markaa ninkii ka baabaaday ama sida qaldan u isticmaalay ayay soo celinaysaa oo jirka ayay dub kugu soo kabaysaa oo taasuna faa'iido aad u ballaaran bay kuu leedahay. waad u isticmaali kartaa, cuntadaad ku tarsan kartaa, sideedaad u cuni kartaa, cabitaan baad ka dhigan kartaa. cabitaanka laftiisa ayaad ku isticmaali kartaa inaad isku dhex darto, intaba waad u qaadan kartaa. waxaa shardi ah basashu inay tahay basasha cad ee aan kulaylka lahayn. haddii ay taa ay kulul ay tahay manaafacaadka jidhka waa u wacantahay, laakiin basashan baa ka taya wacan oo healthy benefits gaar ahaan issuegan aynu ka hadlayna imika ee dib u nafaqaynta ninka jidhka ragga jidhkooda ay macdantaas ka baxday iyada ayaa u wanaagsan.
haddaba saddexdaasu haddii ay kuu kulmaan basashaas basalcadka la yidhaahdo, lowska aynu tilmaamnay ee almoodka la yidhaahdo, iyo caanaha freshkaahi waxay soo celiyaan ama waxay dib u nafaqeeyaan raganimadaada. sidoo kale macdantii kaa luntay ayay insha allah ay kuu soo hagaajinayaan way kuu nafaqeynayaan. waxaana shardi u ah inaad muddo aad wato, waa kow, oo aanad maalmo kooban aanad ku joojin. shardiga labaad ama shardiga koowaad ba aynu ka dhignay waa inaad marka koowaad aafooyinkii foosha xumaa ee macdantaada aad ku lumisay aad joojisaa. xataa haddaad xaasilo tahay waa inaad hakad aad gashaa muddo tembereeriya, adigoo markaa xaaskaaga la sheergaraynaya arrintan oo la wadaagaya oo markaas si caqliyeysan oo cilmiyeysan wax ugu sheegaya insha allah. intaas ayaa muuqaalkan aynu kaga tagaynaa. la sii wadaago si sheergareeya. su-aalaha waxaad naga soo weydiin kartaan dhinaca facebooka, mansejarka aad naga soo qori kartaan caadina insha allah waad noo soo wici kartaan marka tala caafimaad aad raadinayso. fi amaan illah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.